kulanti habboon daawada idilkiinba ku soo dhawaada Jowhar Media Network waxaan idin wadnaa sheeko ku saabsan arrimaha dowlad goboleedka Jubbaland gadoodka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee doorashada qof iyo cod iyo cadaadis Axmed Madoobe kaga imaanaya dowladda Kenya amuurtaasi iyo sheekooyin kale oo ku saabsan arrimaha doorashada qofka iyo cod iyo shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaan idin soo gudbin doonaa goordhow. xubno ka tirsan dowladda Kenya ayaa maalmadii shalay gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka Jubbaland iyagoona halkaas kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo waqtigiisa uu dhamaaday. dowladda Kenya ayaa cadaadis ku saaraysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe in uu u hoggaansamo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran oo dhawaan ay soo saareen madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug, Gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo lagu go'aamiyay in dalku uu aado doorasho qof iyo cod ah oo shacabku ay ku soo dooranayaan mas'uulka ay rabaan, balse Axmed Madoobe uu diiday arrinkaasi isagoona ku andacooday in sharka laga soo qaybgeliyo Puntland iyo maamulka kumeel gaarka ah ee SEC Khaatumo. wixii intaasi ka dambeeyay Axmed Madoobe ayaa Kismaayo ka bilaabay arrimo hoosaad ah oo ku saabsan doorasho la mid ah mid isagoo isku caanshubay ee Kismaayo ka dhacday 4 sano ka hor, iyadoona joojinta doorashadaasi iyo hoggaansanaanta shirka madasha wadatashiga qaran laga duulayo ayaa xubno ka tirsan dowladda Kenya waxa ay gaareen magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland iyagoona halkaas kulan kula qaatay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona qodobo la hordhigay ay qayb ka ahaayeen in uu ka qayb galo arrimaha doorashada qofka iyo codka isla markaana uu qaato warmurtiyeedkii ay soo saareen madasha wadatashiga qaran ee dalka isla markaana dalkeena Soomaaliya lagu jiheynayo doorasho ku aadan in dadku iyagu ay soo doortaan hadba mas'uulka ay doonayaan, iyadoona doorashada qofka iyo codka la filayo in la bilaabo 1 Juun ee sanadka 2025 ee fowda inagu soo haya, balse Axmed Madoobe oo aan ku qanacsanayn arrimaha doorashada qofka iyo codka isla markaana u arka in ay meesha ka saari karaan ayaa Kismaayo ka bilaabay arrimo ku saabsan in doorasho isaga u gaar ah uu ku qabsado magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana sidoo kale xubno ka tirsan maamulkiisa oo isna ka amar qaata ay soo saareen warqado ku saabsan in magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka u ah maamulka Jubbaland aan lagu dhex qaadan karin hub uusan ogeyn dowlad goboleedka Jubbaland, taas oo ku saabsan in maamulka Jubbaland xilligan uu ka baqdan qabo in madaxweynaha maamulka Jubbaland talaabo adag laga qaado. waxaana sidoo kale xubno Axmed Madoobe la sheegay in isagu ay ka amar qaataan Kismaayo ay kaga dhawaaqeen in ay yihiin musharaxiin u tartamaysa xilka madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland, taas oo la mid ah in sanadkii 2019 Axmed Madoobe sidaan oo kale u sameystay musharaxiin isaga u gaarka ah. haddaba daawadayaal sidee kula tahay Axmed Madoobe ma u suuragali kartaa in doorasho isaga u gaar ah oo ku qabsado magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka Jubbaland isagoona cadaadis dhinacyo badan ay kaga imaanayaan waqtigan?